faa'iidada weyn aan meesha asamayso waxaa waaye gurigii lacag badan maadan gelinin waxaa gelis 10% gurigina asiga isdhiiboyo. So sheekadiisa idin sheegaya 2019kii ayaan safar u tagay Dubai si aan sidaas u sameeyo. Hey, assalaamu calaykum, kusoo dhawo channelkayga waa Huda Taajir. haddii ay ugu cusub tahay subscribe garay ila soco. laakiin ugu muhiimada ugu weyn haddii aad contentigan aad ka heshay fadlan like saar si aad u ogaado in contentigan uu ku anfacayo oo aan mid noocan u egna aan soo badiyo. barnaamijkeen maanta wuxuu ku saabsan yahay in aad Dubai guri aad ku qanacsantahay aad jeceshahay dream house dream apartment aad ka gadatid si aad gurigaas lacag uga samaysid adigoona guriga hogart markaa gadanaysid lacag badan aysan kaa galaynin. Okay, Huda taas ay ku samayn karnaa. isugo wada dhamayso videogan adiga jawaabta helaysid. laba qodob ay guri loo gataa ama waxaad u gadanaysaa in aad gurigan ka faa'iidid aad si ijaartid oo asagii oo ku noqdo kii ku biilay ama waxaad u noqonaysaa inaad gurigan degtid ama vacation home aad ka dhigtid yani waxa guri aad waxa aad ku laabanayo aad isticmaalaysid uu yahay. marka channelka wuxuu ku saabsan yahay dhaqaale iyo horumarka sida lagu gaari lahaa. So marka aniga kama hadlayo guri private ahaan ka isticmaalay kan waxa way gurigii waxtarka ku sameynay ee lacagta ku kordhinay ee taajir wadada taajirnimada ku fududeynay. marka waa guri aad u gadanaysid inaad si ijaartid ee maaha guri aad u gadanaysid inaad degto. soo malax kaga baahno lacag aad u tiro badan inaad saas sameeyo. haddaba sidee ku gadan karaa aniyoo lacag cash ee aan wadanin oo saas u fara badan ama guriga dhan hal mar aan dhiibi karin siyaabo kale oo fudud lacag iska baahan ma jirto. oo taas waxa ka jawaabay maanta videoga dhan wada dhameeyo aad jawaabtiisa helaysid. Okay, haddaba anigoo qorbaha ka tagay 1 milyan aysan jeebka igu jirin sidee guri Dubai uga gataa oo lacagtan ani ay ii soo noqonayso oo gurigaas ani ibiilaya lacag badan aad iga gashay. jawaabta ana ku hayo jawaabta waxa waaye waxa xiriir la sameynaysaa oo jiro bangiyaal ee ku fududeenayo in gurigaas ku iibiyaan kabacdina aad ayaga u yaryaraysid lacagtii. Yes, Dubai waaye bangiga dinka qaadanaysa xalaal deen ku siinaya guriga waad soo gadanaysaa. guriga marka soo gadatid bangiga marka percentage ka harbiya marka deenta uu ku siinaayeen isla markii ka marbiyo waxa payment plan waxaad haysatiin between 10 years to 30 years dambina ma aha waa wax la ogol yahay. marka waa iska yaryareynaysaa wax yar basiidad ka dhiibaysaa fudud faa'iidadiisu ku saarnaa faa'iidadiisan wax kaama dhibayso way ku soo laabanaysaa marka aad ijaartid ka badan waxay ku soo laabanaysaa qayb aad ka meel aad ka dhigin kartid. laakiin hadda waddanka aan ma digniso qofka in marka lacag la deeminayo waddanka inuu dignaado Soomaha. jawaabtada ku siinaya dadka meesha ku nool waa sax sharciga waxa laga rabo waxa waaye inay meesha hadii inay degan yihiin oo kala deegaan ku leeyihiin deen in la sii karo. laakiin adiga iyo aniga oo ka tagnay meelahan hadii aan tusi karno bangi la aqoonsan yahay wadan la aqoonsan yahay ka yimi iyo shaqo rasmi ah haysatid ee dhaqaalaha ku soo gala oo tusi kartid bangiga lacagta ku deeminaya the 10% or 20% ama a certain percentage aad dhigaysa laakiin aanan ahayn the whole 100% ana inta kale tuu ku deeminaya markaas guriga ku soo gadanaysa. Okay, haddaba guriga markaa soo gato deenta aan soo qaato ani meesh ma deegniye guriga sidee isku bixinaya. Yes, waa su'aasha labaad. taa jawaabteed marka waxay tahay gurigi waad ijaaraysaa. dad badan ee guri raadinaya ayaa wadanka ka buuxo inkastoo hadda corona ay tahay xoogo yar isbedel uu yimaado laakiin corona weligiis ma joogi doono. waddankaasna waa waddan ganacsi soo shaqaale iyo dad maanta oo dhan ma ka dhamaadaan especially hadda meelaha fiican aad guriga ka gadatid maanta oo dhan dadka ijaarto ma weynaysid. laakiin Huda aniga meesha ma degni maanta oo dhan maamulkeeda ba ana awoodo maxna iidan taas ma lahan. waxaa jirto dad guriga ku manage gareyn karo bishii qofka isa ijaarka soo qaaday gurigii wuxuu uga baahnayo kala tiiriyarowga u sameynayo oo na make sure ku sameynayo in gurigii uusan dhaawacmanin oo kaleeto. haddaba dadkaas meeqay qaadanayaan wax badan kaama qaadanayaan 3% 5% way buuxaan shirkadooyin. so marka muhiimaddu waxaa waaye marka aad gadanaysid markaas in dadka aad ka ijaaraysid gurigan uu yahay guri
u cuntamayo kaleeto location ahaan ma inuu meel fiican ku yaalo oo markasta laga ijaarto iyo inta uu la eg yahayna inay tahay wax dadka marketka uu weyd oo demand gareenayo yacni guri investment hada u gadanaysid sida in aad degaysa camal 5 qol kama fikraysid waxaa ka fikraysaan yaa wadanka u badan wadankan okay wadanka waxa imaado intaasoo umadoo kala duwan oo shaqaale ahaan u imaado oo hal sano 2 sano intee joogto haddana wadankooda ku noqdo ama 4 sano yacni dana u imaadaan oo badankood familiadooda aan wadanin ama hadday family wataanne nini naagtiisa la so marka kuwaasoo kaleete 5 qol ma daneynayaan waxay daneynayaan 1 ilaa 2 qol okay as qof oo investor ah maxaa sameynaya marka okay suuqa wuxuu u jecel yahay guryaha oo ka kooban qol ama 2 qol maxaa sameynaya marka adigin qolkii ama 2 qol aad soo gadanaysaa so sheekadiisani sheegaya 2019kii ayaa safar u tagay Dubai si aan sidaas u sameeyo oo aan nafsad ahaanteeda aan apartment saas aan gato si aan u sii ijaaro so maxaa sameeyay qodobka koowaad aan sameeyo waxa horta page weyn jiro oo hadda aad isticmaali kartid way una badan yihiin laakiin midka ugu caansan waxa waaye ee Dubai laga isticmaalo property finder laha xaga galaysa guriga nooca aad rabtid inta lacagta aad rabtid aad isdhehaysid awoodaada inay tahay kaleeto waa filter gareynaysaa guriga sida u arkaysa guriga ku qanciyo kugu quruxda badan wahdaad degaysid qurux muhiim aha mostly ana investment maadaama sameeyay location kuma fiirin location ke biri hadaa rabo ina exit plan u baahanahay oo rabo ina iska godo xaafada mi u adkaanaysa ina godo mase markasta waa loo baahan yahay hay iyo gurigane weynkiisane waa la fiiriyaa markii oo investment ahaan oo sameynaysid guriga oo ka sii yar yahay oo ka easysan yahay ina ijaartid in oo aad iska sii gadahdooti because most of the time dadku markii guryaha ay gadanayaan markii ugu kood ay guri ay gadanayaan ee tahay guryaha waxay gataan oo kaleeto 1 bedroom ka ama 2 bedroom ka waxa asaas camal 5 iyo 6 waa family badanana familiyaasha wareegood ma badno dadka guryaha laga ijaaro waxay bixiyaan couple or single person so in asas kale filter you have to know what you want like mustaqbalka investment le hadee tahay then stick to in a 1-2 bedroom aadan ka badnaan hadii aad deganaashi wax kale vacation home aad tahay de aad familkaaga si u balaaran yahay aad garanaysataa okay marka sa filter ku sameeyay as tiraahdo okay 3 to 5 different kana aan arkay oo hadeer oo la gadooyo ka bacdi broker ka la xiriiraysa hadii aad meesha joogtid horta guriga waa lagu soo tusaya hadii aadan joogin qasab horta waa inaad tagtid hadii aadan joogin ilama inaad gadan kartid bis kadib waxa la soo gaaray qaybta finance-ka marka intaadan inta ka bixin warqadaada si qaadanaysa shaqooyinka meesha aad ka shaqaysid bangigaaga bank statement iyo lagaga baahan yahay si qaadanaysa si waxa dhan ay waadax u yihiin the last 3 to 6 months inta dhaqaale ku soo gashay cadeynaysa waad bixaysa bangiga meeting la sameynaysa aa usoo bandhigaysa dhaqaalahaaga wadanka aad ka imaado dhalasho u leedahay ina investment kaliya arinka u sameynaysid sidoo kaleeto inaad rabtid inaad sii ijaartid oo lacagta ijaarka imaanaysa iyaga u noqonayso waxaas kuma cusba iyaga way soo dhaweynayaan hadii aad rabtid mortgage midka caadiga ah iyo hadaa rabtid midka dhaxalaal mortgage oo dhanka interest free midka ay ku sinaan wadan muslim maadaama ay tahay the two option waa haysataa so marka maadaama two option ka ay haysatid de xalaalkaagii aaba qaadanaysa maxaa xaraan iyo dibkeeda ku soo arkay ismaha bis way ku ogolaanayaan guriga sida ku gadato guriga marka sida ku gadatayna waxaad u dhiibaysaa property manager oo aad dhehaysid guriga waa kana sawir ka qaad balkii wuxuu baahan yahay u samee account-keygana waa kana waxaad u saxiixaysaa contractigi ana waa kasoo tagaysaa ika processka bilaaba ika guriga ijaarayo adigoo wadanka isku jooga lacagta ku soo dhacaysa lacagti marka adiga account waxa inaad ka samaysatahay Dubai account marka Dubai ka samaysatid deyntii oo bil kasta u yareynaysaa qaarna faa'iido meel u dhigaysaa qaarna waxaad u dhigaysaa lacag guriga hadii oo marka vacancy uu yahay marka oo dad aysan degnayn oo kala marka qaarkood way dhacdaa between time qofada hal sano contract aasiisid halkaasna u dhamaado qofka kale soo degla ama haduu sii wadan marka qaarkood gaab baa jiro gaabkaas aad u dhiganaysaa ama waxyaabo yirista yactir xatee way ka soo gaarayso marka maxaa sameysay
faa'iidada weyn aan meesha asamayso waxaa waaye gurigii lacag badan maadan gelinin waxaa gelis un 10% gurigina asiga isdhiiboyo adima dhiibosid asaa isdhiiboyo waa ijaartay lacagta ijaarka soo qaadaysaa half waxaa ku dhiibtay deenti half waxaa dhigtay half waxaa dhigtay dayactir iyo wixii lacala rainy days waxadii markasta everything on top maahane markii loo baahnaado waxaa isticmaaleen qaana waa faa'iidada jeebkaa gashatay so haddii taa faa'iidada markasta bil kasta passive income ku socoto ko midda labaadna waxaa waaye guryaha with the time koray u kacaan kor markay u kacaan appreciation maalinta gurigaas gad aad istidhaahdid wow at least 30 to 50% oo faa'iida ku saaran marka waxaa waaye guryo waxaa waaye the easy thing aad ku bilaabi kartid aad lacag ka sameyn kartid oon passive ma aha wax maalin kasta aad fadhiisido aad ka shaqeynaysid waxaa hal mar investment fiican sameynaysa inta kale waa iska socotaa marka maanta taas aan rabay inaan idin la qaybsado jaaniskaasna waad haysataa dad badan kama warqabaan awoodaas way leeyihiin inay gadan karaan laakiin kama warqabaan ama hadday ka warqabaan inay la gadan karaan waxay aaminsan yihiin ayagoo meel fog ka degan oo kaleeto inay adag tahay inay manage gareeyaan inay baakii isku dawridkiisa laakiin waa possible dad badan oo sameeyeen waa arkay inkasta Soomaali aysan u badnayn laakiin adina hadda waa sameyn kartaa haddii aad shuruudahan aad buuxinaysid of course haddii aadan buuxinayna in kolley ku noqoto wax aad maskaxda ku sii haysid aad sameyn kartid insha Allah mustaqbalka dhow waxaan rajeynayaa in contentigan aad ka hesheen waad mahadsantahay ilaa inta hadda soo gaartay waa inoo videogeena dambe like gareey si aan u ogaado in contentigan uu ku anfacay and subscribe gareey